nabad daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena Xuuraansi oo xilligan oo kala aad nooga barateen inaan ka soo baahino halkan waa shaashada telefishinka TTN goob kastood ku sugan tahay iyo saacad walba ay xilligan ku tahayba qodobo xasaasi ayaan xilligan rabnaa daawada inaan idinkula wadaagno barnaamijkeena Xuuraansi oo aan alaaba idinku soo aruurino macluumaadkii intii xalay aad hurday ka dhacay dalka iyo dibadda iyo waxa xilligan miiska saaran dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mashaariic tirabeela waxa ay ka xarig jartay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya iyadoo la leeyahay mashaariicdaasi kama muuqdaan baaxadda ay u leeyihiin Muqdisho iyo sida dowladdu ay u buunbuurinayso dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay leeyihiin dowladdu waxa ay mar walba shaacisaa mashaariic ay xarig ka jartay balse mashaariicdaasi intooda badan lagama dareemo magaalada Muqdisho taasi oo sababteeda la isweydiinayo sida ay ku dhacday waxa sidoo kale Muqdisho ka socda ololihii ay horay u shaacisay dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadanaa hubka dhigista guud ahaanba dalka iyadoona ololahaasi uu si xoogan uga socdo caasimadda labada shabeelle iyo guud ahaanba dalka oo ay doonayso in lagu tirtiro hubka gacanta sharci darrada ku jira sida ay ku tilmaantay ee aan dowladda u diiwaan gashaneen kaasi oo dhibaato ba'an ku haya guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku eedeeyay in iyaga loo duur xulayo oo hadafka guud uusan hubka dhigis ahayn ay tahay in iyaga gacan bir lagu qabto si looga takhaluso naftooda iyo sidoo kale in ay ka laabtaan rabitaanka kursiga villa Soomaaliya ee ay ku haminayaan waa sida ay ku doodayaan sidoo kale warweyn waxa uu ka soo yeeray beesha caalamka gaar ahaan dhexdhexaadiyaashii dowladda federaalka iyo mucaaradka iyadoo amar ay soo saartay beesha caalamka kaasi oo si wada jira loogu socodsiiyay villa Soomaaliya golaha mustaqbalka iyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo sida ay sheegayaan xogaha gaarka ee uu helay telefishinka TTN fariintan ka timid beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay go'aan ku gaartay in la soo gabagabeeyo wadahadaladii in muddo soo jiitamayay ee qorshuhu in ay dhaxmaraan mucaaradka iyo villa Soomaaliya iyadoona beesha caalamku ay sheegtay in ay dhawaan wufuud caalami ah u soo dirayso Muqdisho kuwaasi oo goobjoog ka noqon doona shirka ay suurtagal tahay ama u dhaxayn doona mucaaradka iyo villa Soomaaliya kaasi oo loo qorsheeyay toddobaadka koobaad ee bishan July inuu ka dhaco Muqdisho haddaba beesha caalamku waxay sheegtay in wada hadalada kaliya laba daraf ay noqon doonaan oo u dhaxeeya villa Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka wixii inta ka baxsan aysan goobjoog ka noqon doonin madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo sida xogaha uu telefishinka TTN helay fariinta la gaarsiiyay ayaa waxaa loo sheegay in ay laba mid ay u furan tahay inuu ku biiro ama uu qayb ka noqdo golaha mustaqbalka iyo inuu si gaar ah ula xaajoodo madaxweyne xasan sheekh balse aysan jirin daraf saddexaad oo shirkaasi qayb ka noqonaya taasi oo muujinaysa in ay guuleysatay afkaartii mucaaradka mustaqbalka ee ahayd in ay iyagu yihiin jaangooyaasha siyaasadda mucaaradka oo keli ah oo aysan jirin cid kale oo ay safkooda ku arki karaan villa Soomaaliya oo in muddo ka gilgilinaysa isla markaasina ilaa wareegii ugu dambeeyay ee wada hadalada doonaysay inay kooxo kale ku soo darto wada hadalada ayaa ugu dambeystii ku qanacday fariinta beesha caalamka iyadoona villa Soomaaliya amar lagu siiyay inay soo gudbiso listiga wada hadalada uga qayb galaya maadaama listiga mucaaradka mar horeba beesha caalamka uu jeebkeeda galay sidoo kale wararka kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena waxaa ka mid noqon doona Baydhabo oo laga soo sheegayo warar aan wanaagsaneyn iyadoona maalinba maalinta ka dambaysa ay colaad halkaasi ka sii qarxayso colaadaasi u dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadii daraawiishta ee lafta gareen kuwaasi oo mar walba si wada jira u soo weerara waxaan shalay baahinay telefishinka TTN iyo barihiisa bulshada in ay jirto dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda duleedka magaalada Baydhabo kuwaasi oo la doonayo in laga hortago duulaan mar kale uga yimaada ciidamadii daraawiishta ee lafta gareen magaalada Baydhabo iyadoona ugu dambeystii taasi ay wararku sheegayaan inay dhacday oo xalay mar kale la isku farasaaray gudaha magaalada Baydhabo waxay noqotay dagaal u joog iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya maamulka cusub ee koonfur galbeed ay ku guuldareysteen inay xakameeyaan weerarada sida joogtada ugu socda magaalada Baydhabo iyo in ay xal la gaaraan
dhinaca kale ee kasoo horjeeda maamulka dhowaan laga yagleelay koonfur galbeed Soomaaliya. sidoo kale haddii aanu sii gudubno dhanka maamulka Galmudug, taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad oo muddo bil ku dhow howlo shaqo u joogay gobolkaasi ayaa shaqooyin waaweyn sida la soo warinaya ka qabtay gobolkaasi, iyadoona markii koobaadba uu soo gabagabeeyay khilaafkii iyo xurguftii siyaasadeed u dhaxaysay xisbiga JSB iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha maamulkaasi, iyadoona arrimahaasi ay ahaayeen culayskii ugu weynaa ee Galmudug ka taagnaa, kuwaasi oo caqabad ku noqday horumarkii gobolkaasi ka socday iyo ololihii doorashada ee gobolkaasi la doonayay in laga qabto, iyadoona uu dhowaan ku dhawaaqay Axmed Qoorqoor inuu ka tanaasulay isla markaasina uu isdhiibay oo uu ka haray siyaasadda iyo xilliga kala guurka qorshaha villa Soomaaliya ay gobolkaasi ka maagan tahay. haddaba wixii intaasi ka dambeeyay Mahad Maxamed Salaad ayaa wuxuu u kaba gashaday in uu colaada qabiilada ee gobolada kala duwan ama deegaanada kala duwan ee maamulkaasi ka taagan uu soo afjaro, iyadoona uu ku guuleystay in ugu dambeystii colaad laba beeleed ka dhex taagneed oo dhib badan ku haysa gobolkaasi uu xalay ku dhawaaqay inuu soo afjaray, isaga oo laamaha amniga amar ku siiyey ciddii hub ka baxsan maamulkaasi lagu arko in ay tallaabo sharci ah ka qaadaan. arrintan ayaa waxay tahay mid si weyn u soo dhaweeyeen guud ahaanba bulshada ku nool gobolkaasi Galmudug. sidoo kale dhanka Somaliland ayay ka dhex tolatay, iyadoona ictiraafkii dhowaan ay isa siiyeen Somaliland iyo Israel iyo safaaradii dhowaan ay sheegtay Somaliland in ay ka hirgelisay magaalada Qudus ay caqabad xoogan iyo sidoo kale khilaaf xoogan ka dhex dhalisay gudaha Hargeysa. xisbiga ka oo ahaa xisbigii dhisay xisbiga wadani ee u suurta geliyay inuu ku guuleysto kursiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha xilligan ee maamulka Somaliland iyo isla xisbiga wadani ama haddii si kale aan u dhaho labadii xisbi ee isdhisay ka iyo wadani ayay xilligan ka dhex taagantahay, iyadoo xisbiga ka uu ku dhawaaqay in ay sharci darro tahay isla markaasina diinta islaamka ay ka soo horjeedo safaaradda dhowaan Somaliland ay ka hirgelisay magaalada Qudus, iyadoona dhanka kale xisbiga mas'uuliyiin u hadlay isla markaasina ay si ba'an u weerareen siyaasadda xisbiga ka isla markaasina telefishinka Somaliland laga baahiyay propaganda ka dhan ah xisbiga, taasi oo la sheegay in ay soo dhaxmartay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. arrintan ayaa waxay tahay mid culays xoogan xilligan ku noqonaysa is-aqoonsigii Israel iyo Somaliland oo labadooduba go'doon ku kala ah bariga dhexe iyo geeska Afrika, isla markaasina xilligan waddo cusub u furtay in Somaliland go'doon kale ay sii gasho. sidoo kale warar kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeen waxaa ka mid noqon doona dhanka Jubbaland. dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaa laga soo sheegaya gobolka Gado, iyadoona ciidamo ka taabacsan dowladda federaalka iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hoostaga ay halkaasi dhaqdhaqaaq ka sameeyeen, taasoo laga cabsi qaba inuu dagaal ka dhex qarxo. bariga dhexe haddii aan u gudubno waxay warar ku sheegayaan in habeennimadii xalay ahayd ay mar kale u ahayd bariga dhexe kadib duqeymo xoogan oo bariga dhexe ay isku weydaarsadeen Mareykanka iyo Iiraan, taasi oo shaki gelinaysa wadahadaladii iyo xabad joojintii 60 bari ee dhowaan lagu dhawaaqay. guud ahaan taasi aan ku soo afmeeran barnaamijkeena Xuuraansi oo xilligan aad ku daawateen warbixino xasaasi ah waa bahdi Xuuraansi oo idin leh amaana Allah.